maleeda ama ma dareemaysaa salaxyo timaha inay qafiif ka noqdeen inay booskooda ka turkeen daadasho fara badan ma ka dareemaysaa timaha inaysan kuu bixeenin xilli walba aad shalaysato shanlada inay soo buux dhaafinayaan waqti walba ay kaa daadanayaan timaha inay bidaar kugu soo socoto kale inay maalinba maalin ka dambeysa kaasii sikanayaan booskooda kasii sikanayaan salaxyo fara badan aad dareemayso haddaba jawaabtaada haddii haatee xal yaroo fudud ayaan ku wadaa waxyaabahaas oo dhanna kaa caawi doono alaabtan waxay kaa caawinaysaa inay timahaada kaaga dhigto timo caafimaad qaba salka hoose ayay kaaga soo nafaqeynaysaa timo xabad weyne israacsan isla socdo ayay kaaga dhigaysaa waxay kaa joojinaysaa daadashada timaha timo isla socda caafimaad qaba ayay kaaga dhigaysaa koritaanka timaha way kaa caawinaysaa timaha way kuu bixinaysaa wayna kuu dheereynaysaa sidoo kale timaha way kuu madoobeynaysaa kalarkaada hore ayay kuu soo celinaysaa timo isla socday caafimaad qaba dhumucla ayay kaaga dhigaysaa timahaada nagala faa'iidaysto asxaabtaada kalena la wadaag oo sii sheer garee muuqaalkana like-ta ku dhufo بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال هذا ولا لا يقول قالقة وأمر كلي مقال كلا عصب مقال كان لا شير كروي لا لا يكري حتى أدقو عصب طهين السود وكاجا ما دلنا داوش هذا مقال كان كم تقرح بدن يرى ودير جلنا ألعبتين يريد أيام ديار سنين إن شاء الله إذا كان على صعدة مقال كان لايك تكودفتا ألعبتان بقول كي وبقول وحيكا عاودون تا ببنان كتمها تمها دادنايا تمها هوس كسوسيبنايا تمها أقول كله تمها booskoodi ka durkay ama qafiif ka noqday sidoo kale timaha aanan bixaynin ama aanan koraynin meeshoodii aanan dhaafaynin way kaa caawinaysaa haddii waxaan halkan ku haystaa waxawaaye 2 xabo basal ah labadan xabo basasha ah iyo waxyaabihii kale ee aan ku darnay aan u isticmaalay adigana nala faa'iideyso oo muuqaalka nala dhamaysa hadda waa kana basasha waan soo jarjaray shideeda iyadoo iswadata ayaan soo jarjaray qolofkii lagama diirin hore lagama jarin gadaal lagama jarin sideeda iyadoo ayaan soo jarjaray marka biyo yar ayaan ku shubaynaa waan soo shiidaynaa alaabtan ha yaraysan ha dhayalsan ha fududaysan waxa ay aad iyo aad kaaga caawi doontaa timahaada haddii aad ku dhib qabtay daadashada jajabka siibashada tintii is wadato tintiina qafiif ka noqoto inay booskeeda ka duruqdo inaad salaxyo aad dareemayso inay bidaar ku geli rabto kale timaha inaysan kuu korayn ama ay kuu dheeraanaynin aad iyo aad kaaga caawinaysaa cuncunka timaha kale timaha ina qolof ku leeyihiin ama agool ay ku leeyihiin oo kale timaha in ay ka cadaadeen oo kale ama midabkooda hore uu ka lumay way ku madoobeynaysaa waxaan haystaa hadda waxa waaye koob biyo ah ayaan haystaa waliba koobkii waan sii haafiya haafka ayaan haaf ka sii reebay waan soo shiidaynaa makiinada cabitaanka ayaan ku qaadanaynaa waan soo shiidaynaa marka aan soo shiidno ayaan isku soo noqonaynaa iyo waxyaabaha kale aan ku dari doono aan isticmaali doono alaabo kale ayaan ku daraynaa insha Allah muuqaalkana la dhamayso muuqaalkana like ku dhufo hadaad ka heshay comment qurux badan i reeb waan kaaga mahad celinaya daawashada muuqaalkan hadda waa kana waan soo shiiday basashii sidaas ay soo noqotay koobka haafkiisa waaye 2 kilo dhig waa biyihii dhigna iyadana basashi waaye marka waxaan sameynaynaa waan miireynaa basasha iyo waxaan kala saaraynaa biyaha ayaan kala saaraynaa waxaan u baahanahay oo kaliya waa dheecaanka ama biyaheeda ayaan u baahanahay iyo wixii kale aan ku darsan doono nala daawo muuqaalka oo nala leegaray waxaan hadda haystaa waxa waaye tiish waaye tiishka kan adag ayaa loo baahan yahay ee qoyan waan sameynaya waan kala fidinayaa ka aan kala fidiyo ayaan weelka dhaxda u dhigayaa waan ku shubayaa si hadhowda aysan iiga galgalin waxyaabaha gurufta ama qashinka waxyaabahaas oo dhan in iga saara ayaa rabaa waa ku shubaya hadda wakaasa sida jeedo daqiiqaas ay soo noqotay basasha adi sida cabitaan loo shiido oo kale ayaad u soo shiidaysaa marka u soo shiido waad miiraysaa cabitaanka kan lagu miiro ama shaqshaqa ama caani miirka oo kale hadii aad ku miirto waxa laga yaabaa waxyaabo kale oo guruf inay ka raacaan hadhow timihii ay ka galgalaan ay kaaga harharaan adiga mara soo qaado ama tiishkan oo kale soo qaado sidaas isaga reeb biyo nadiif ayaa kuu soo baxayo wax qashina ama qashir la socdo aan lahayn ayaa kuu soo haraya intaas oo kaliya ayaad u baahan tahay qashinka dhan waad iska saaraysaa marka oo waxaad ka miirinaysaa dheecaanka ama biyaha ayaad u baahan tahay wax kale aad u baahan tahay mala hadda waa kaasa qolofkii bas waaye looma baahna halahan ayaa loo baahan yahay iyo waxyaabihii kale aan ku dari lahayn aan u isticmaali lahayn muuqaalka nagala bogo oo nagala faa'iideysto waa hubaal alaabtan way ka caawi doontaa timahaada haddii aad leedahay babanaan timaha inay ka sikadeen booskoodii
inay qafiif ku noqdeen, inay bidaar ku geli rabto rag iyo dumar qofkaa doonta ahaaw. aad iyo aad ayay ku caawi doontaa nagala faa'iideyso. ugu horeyn sheyga koowaad aan ku darsanayo isticmaalina waxa waaye waa aloe vera gel. dacarta timaha iyo jirkaba aad ayay ugu wanaagsan tahay. sidoo kale waxay kaa caawinaysaa cuncunka timaha. waxay kale kaa caawinaysaa in ay timaha agool kale oo kale kaa caawiso. timaha inay salka hoose kaaga soo nafaqayso. waxa kaloo haystana waxay tahay xabad sawda, saliidda xabad sawdada ayaan haystaa. xabad sawdada waa madaawaad, waan wada ognahay, lagaagama sheekeynayo. dhowr dhibcood ayaan ka qaadanayaa. xabad sawdada timaha way kuu bixinaysaa, way kuu dheereynaysaa. waxa kale kuu sameynaysaa, way kuu daaweynaysaa. shay kasta, cilad kasta ee qabto way kaaga daaweynaysaa. waxa kale kuu sameynaysaa waxa ay tahay madow ayay kaaga dhigaysaa. timaha way kuu madoobeynaysaa hadduu kalarkoodii hore kaa lumay. haddii adigoo da-yar ee ciro ku gashay way kaa caawinaysaa, way kuu madoobeynaysaa. timo madow oo qurux badan ayay kaaga dhigaysaa. timihii way kuu bixinaysaa. timaha kalar qurux badan ayay kaaga dhigaysaa. sidoo kale waxaan haystaa vitamin E capsule ayaan haystaa, 2 xabe ah ayaan ku darsanayaa. vitamin E ga timaha aad ayuu ugu wanaagsan yahay. timaha daadanaya, daadashada way kaa joojinaysaa. talka hoosena way kaaga soo nafaqeynaysaa. timo nafaqaysan israacsan ayay kaaga dhigaysaa. babanaanka timaha inay qafiif ka noqdeen oo kale aad iyo aad ayay kaaga caawinaysaa. alaabtan si yar oo fudud ayaad u diyaarsan kartaa, gurigaada ayaad ku diyaarsan kartaa. qarash badan kaaga baxayo, waqti badan kaaga baxayo. hubaal timahaada aad iyo aad ayaad ugu mahadi doontaa haddii aad alaabtan joogtayso. haddii aad tahay rag iyo haddii aad tahay dumar, labadaba way ku caawinaysaa. xitaa ilmaha yaryar ee timuhu ay ka babanaan yihiin, timuhu ay booskoodii ka durgeen, ilmaha haddii cambaar gashay oo kale, haddii agool leeyihiin, qolof leeyihiin, intaba way kaa caawinaysaa. waa alaab dhan walbaba ka dhammaystiran, daawo ah, waxtar badan u leh, waqti badanna uusan kaa gelaynin, gurigaada iyo gacantaadana aad ku diyaarsan karto. sidoo kale waxaan haystaa waxa waaye castor oil black Jamaican ayaan haystaa. adiga saliida kale aad haysato ku darso. haddii ayada aad haysato ku darso. hadaa haysato rosemary ku darso. hadaa saytuun haysato ku darso. macsaro, midka aad haysato adiga ku darso. muhiim ma aha aniga midka aan haysto. alaabtan marka waxaan sameynayaa mar labaad ayaan haddana waxaan ku celinayaa makiintii oo waan kusoo shiidaya si markaas ay isku dhexgalaan. ayaa alaabtan oo dhan waan qasaya. haddii aan dhaha way iga daadanaysaa. marka waxaan sameynayaa makiinada haddana mar labaad ku celinayo, waan kusoo shiidaya si ay isku dhex gasho. waan isla arkayna waa kaas alaabtaas caanaha xumbeynayso ee isku dhex jirto ayay noqotay. suufkaadaad soo qaadanaysaa, timaha waad qaybinaysaa, salka hoose ayaad waxaad sameynaysaa ugu soo masaajeynaysaa. welibana masaaj xoogan inaad ugu sameysaa ayaa la rabaa si salka hoose ugu soo nafaqoodo. timahaada haddii aadan masaaj u sameyn, haddii aadan salka hoose kasoo nafaqeynin, waxyaabaha aad marinayso, saliidaha aad marsanayso, haddii aadan masaaj u sameyn, haddii aadan hoos kasoo marinin, waxba kuguma tarayaan. ama saliid qaali ha ku ahaato ama mid raqiis ha ku ahaato. ugu horeyn waa inaad timaha salka hoose masaaj aad ugu soo sameysaa. timaha haddii aadan saliidda ku masaajeynin, masaaj aadan ugu sameynin, wax faa'iida kuuma lahaanay. korkaan haddii aad ka marmariso waxba kuuma taraysa. marka alaabtan timaha aada ugu wanaagsan tahay. si yaroo fudud, isbuuca koowaad, labaad, saddexaad timahaada waa isku kaa raacaan. wax banaan iyo wax bidaar ah meeshaas ku macsalaameynaysaa.